Soomaaliya toos isku tiirsada hadba kiina daran taageera weligiin markii ugu horreysay horta gabadhii ugu horreysay baan ahay runtii oo raadiyaha furtay ama kaas wuxuu ahaa 1950 aad baan yaraa waddaniyada raadiyaha laguma sheegi karin waayo raadiyaha gumaysi baa lahaa waxaanuna ahayn gabdhihii ugu horreeyey oo ka heesa raadiyaha oo aanu dhib badan la kulannay oo calaamo badan oo soo qaatay oo maxay ahayd nalahaa naagi kama heesi karto ama kama hadli karto wadaadadu ay lahaayeen weliba tuuriyona oo ku daray markaan raadiyaha sii gelayno nala tuuriyeynayo aanu barbaranayno meelo badan oo daqarro ah naloo geystay dad isjecel bay ahaayeen dad xorriyadda aad u jecel bay ahaayeen hantidooda ayay ku fangaran jireen shacbiga hadday lacag tahay hadday gacanta wax laga falkiyey ay tahay sida haweenku ay dambiilaha iyo gobasha iyo waxay falkiyaan markaas ay dib u geli jireen oo leegada lagu fan looga dhig haweenku waaba ku buraaburoonoo gabadhii dahabku furaysay waxay tiri afkayga daloola ilkahayga dahabka mudan waxaa iga daran waddankayga daaficiisa marka aad iyo aad bay gabdhuhu u jeclaayeen waddankooda una hurayeen markii ay lahayn gabar walba hadda ay buraanburkaas ku boodo markii buraanburada la cayaarayo calanka Soomaaliyeed oo cirshiga ka nuur kuwii ku caawimi lahaa kama caajisaan annagu kugu cayshnay ilmahaagu kugu cayile cirkaad u eg tahay rabbiyow lagaa cabsado waxay ahayd gabadhii tirisay Xaawo Jibriil Soomaalida waxaan ku baraarujinayaa war wax tabca oo carruur waddaniina oo dhulkooda jecel tabca dunida hoos u eego kan xaqiiqo